cusbitaalka cusub ee haatan dhismihiisu ka socda degmada Ceelbe gobolka Sanaag ayaa musharax madaxweyne ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cali Qurbaawi iyo waliba xubno kale ayaa waxay ugu soo deeqeen 150 sibira sidoo kale Faatimo Cali Walaale iyo Maxamed Cali Walaale oo ku nool dalkaas Yurub ayaa iyaguna dhankooda waxay ugu deeqeen cusbitaalka $1,000 oo lacag ah markaas laga qayb qaadanayo dhismaha cusbitaalka degmada Ceelbe gobolka Sanaag. إلهي سبحانه وتعالى يا مهد سكله اسبوع كان هالكن مركز لبعضنا حربنا مهد عليه بشدة هير علبه قبل كسناك هالكن يعني شوفنا وعسبتهم كي مجال علبه وبشدة يضد كديجان كل سنة يعني بس كوا حقوق بصو علينا ومحسنتين وحرمنا إن شاء الله تعالى مناسبة ضيّر أن سكون مين إن هالك كوري تشيو ولد جودي جاي وجهره يسوع جميعها جودي جاي يوم حنقول هاي xubnaha kale ee gudiga iyo odayaasha dhaqanka nabadoonka maxaan ku dhahay culimada iyo haweenka 150 kiish oo sibira oo ay soo kala wakiisheen rag walba jooga oo madaqada ka soo jeeda waxaan magacyada inaan ka xuso 100 kiish sibirka hore waxa la baxay nilaya Saciid Cali Axmed Qurbaawi oo ah gudoomiyaha xisbiga yool qaran ee ka asaasan magaalada Minneapolis gobolka Minnesota أهنا مشرح مدحوينه دولة فدرالك هاي سوماليا ورنتي هالكاسنا هنوين كله سيدو وصل بحلها وحرمنا إن شاء الله تعالى بقول كاس إن هتكجود كان وحرمنا كله كنتم ككلينا وريتشيو وإصناعه ويسوع وكل شيء محمد موسى عبدي ويسقونا كم دا حسب ريال قرن أهنا كنا مقالة مينيابوليس قبل كمينيسوتا حرباينا عن هالكن عن بنتي كوريتشي جودي قولي كنت كاس وحلينا جزاك الله خير الماشي كسرتين لهاي واحد خير كبدنا الله يديم بدله بنتي وحلي هول كمدال الدولي وحقدي وعذرك كانوا ساكا اسبتالك وحلا بلعبي ديركي وحيابك كلا وبدن ويدمين قيبتي تيب بدو كلا ويدمين في اسبتالك وعرفوا كلا دين لبديو قيب كلا كلا وصل دروا واحد مهم هذا قيب 4 سنة حكلوا له بهاي هاي محنكو بهاي قلكي ميتك أو كلماتي قفوا لتو دماتي لليج شري مركا عسبالك إنتي وجمه سند أي هذا هدي كوحرنا إن قوبتنا كيف هذه السنة مناسبة دن شهادة سومالية ملك استيشوكت خاصة قرب شوكت هير سناج إن كسو قايق عتان عسبالك سدادتك ولا له هذا كقيب قادنا ينا يكون ضيدان كنت وحلنا هاي ومحسنتين ولا كسو قيب قاتي ولا كلنا وحلنا هاي حول كم الدال ولي وهجدي العشتاء في ذيك أيود السورية وحربنا أنا مهل عديدة كديجانك ويجونا إسكا حق بسوا صبح هذا جمعها وكلا خميس وكلا كوب السيء إسكا حق بسوا علينا ومحسنتين وقالي كنت كاشن سلاس أيام ورد شيء بديجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شريف استطاع الجمعيات يا خميسها وهاي إسكا حق بسوا هذا سؤال مدير سو ودني وإسكا حق بسوا كسو ودني غيب كميدا qaybta ka alena ay ku soconaysay iyadoo lacag la isku dardaray oo dadka qurba joogta iyo dad joogta isku dareen oo dadka deegaanka u badan oo isku tashi ah shaqadaas ayaa saaka halka u nimi dadheeraan hadda ka wadnay shaqadii baan hadda soo gabagabeynay halka hadda waxaan u taaganahay inaan la kala wareegno oo aan ku wareejo gudida degmada Ceelbu odayaasha uqaasha iyo waxgaradka haweenka inaan ku wareejo lacag la soo wakiishay oo ka timi dalka dibadiisa laba qof oo isoo wakiisheen kala walaalaha oo meel joogo labada qof oo kala ah Maxamed Cali Cabdi iyo Faatimo Cali Cabdi Maxamed Cali Cabdi oo jooga dalka Sweden wuxuu isoo wakiishay cusbitaalka degmada Ceelbu u soo diray lacag dhameystiran $500 Faatimo Cali Cabdi oo joogta Ingiriiskana waxay soo wakiilatay lacag dhan $500 lacagta ayaan ku wareejinayaa saaka gudida magaalada Ceelbu ugu horeeyo gudoomiyuhu iyo odayaasha iyo uqaasha intan ayaan halka u taaganahay insha Allah iyagana waa mahad celinaynaa waana u ducaynaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin baanu leenahay boqolkiiba boqol weydin mahad celinaynaa waana idin ducaynaynaa halkii aad ka soo saarteen wax ka wanaagsan Allah idin gasho muraadka ugu tala gasheen Allah idin la qabto insha Allah lacagtaas aan halka ku wareejinayaa lacagtaas oo tiradeeda guud ay dhan tahay $1,000
قدوميها قدومية يقدون عقدة gacanta ugu qabo markaa kala bix waxaan ka guddoomay telefoonka u wareej wayo lacagta hayda oo kala bixiyo xawaa bismillaah waxaan maxamed cali barre waxaan ka guddoonay haddaan nahay maamulka magaalada Ceelbu iyo guurtida iyo walaadada iyo haweenka magaalada lacag $1 ay u soo kiisheen maxaa cali walaale iyo faama cali walaale fuad waa kaa guddoonay iyana waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsantihiin muraadka aad leedihiin ilaahay haynii fududeeyo awlaadiina ilaahay haynii barakeeyo caafimaad taama ilaahay caafimaadkiina ilaahay haynii ku siyaadiyo intaasaan kusoo gabagabeynaya wabillahi tawfiiq khadroy فرصة قلا reer Ceelbu maanta oo jimcaha ka shaqeynaysa isbitaalka guud ee degmada Ceelbu si iska qabsaa waxaan leeyahay aad iyo aad buu mahadsantihiin ثانيا goobtan waxaan ku gudoominaynaa 150 sibira oo boqolku noo soo gaarsiiyay musharax madaxweyne Saciid Axmed Cali Qurbaawi ahna gudoomiyaha yool qaran oo baaqayagiis ka soo jawaabay waxaan leenahay musharax madaxweyne aad iyo aad baa u mahadsantahay guuleyso boqolkaas sibirkaana waan ka gudoomay waana kaaga mahad celinaynaa saalisan cid kasta oo muslimiin ah oo ka qayb qaadan karta isbitaalka guud ee degmada Ceelbu waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan isbitaalka qurba joog iyo dal joogba waan ugu baaqaynaa meel gabagaba ah maraya hawlka wadaalo wali waa ogadii qotanka kalena waan ka gudoonay oo loo soo wakiishay Axmed Carab boqolkana Axmed Carab baa loo soo wakiishay oo noo soo hadda nagu wareejiyay Axmedna aad buu mahadsan yahay waana soo gaarsiiyay 150 sibirka ah aad iyo aad buu mahadsantahay ilaa ka okay maxaa ugu baaqaysan dadweynaha kale oo artaan ka qayb qaataan waxaan u baaqaynaa maadaama isbitaalku uu gabagaba yahay deerkii ayaa hadda socda bishii 12aad 12keedii waxaan halkan ka wadnaa shaqadii jimcayaasha la joogtayn jiray oo isbitaalka Ceelbu saad aragtaan waa laga soo qayb galay dhalinyaro haween waxay ahaydeen farsamada gacanta oo wastaadadii iyo rag xirfadda lahaa maxaa ahayd dhaqankii waxay ahayd cid kasta oo shaqo haysayna waa ka soo baxday saaka halkan si fiican baa maanta looga shaqeeyay waana saynoo ahaan jirtay waxaa kaloo intaa noo raaca waxaan la wareegnay saaka oo gudoomanay 150 xabo oo sibir ah oo ayna soo gaarsiiyay 100 sibira musharax musharax madaxweyne Saciid Axmed Cali Qurbaawi si wanaagsan baan u gudoomanay jazakallahu khayrakum baan leenahay musharax guuleysana waa leenahay musharaxa waxaan kaloo baaq u direynaa cidii kale oo musharaxiina oo waxa weeyaan mustaqbalka ay rajo ka hayso siyaasadda waxaan kaloo iyana leenahay cidda hadda shaqaysta oo deegaankana oo waxa weeyaan maamulada inay gashadaan cusbatalka oo rag iyo dumarba hadda u taagan heelana u ah oo wada aad iyo aad baan u hambalyeynaya aad bay mahadsan yihiin khayr ilaahay ha siiyo waana isku tashi way sameeyeen ummadaha cid kasta cid dheer iyo cid dhowna waxbay weydiisanayaan mucaawimo ah in lagu soo caawimo intaasi waa bulshada reer Ceelbu tan labaad
musharaxyada soo iibiyey soo geliyey wax ka soo taray keenay sibirka aad iyo aad bay mahadsan yihiin waxaan leenahay noolaada aad iyo aad baanu idin hambalyeelaynaa soo kordhiya waxaan ku xijinayaa kuwa soo socdo federaalka oo hadda mandaqada ku soo socda haddaydinaan dalka wax ku darsanayn ha imanina iska jooga xamartiina iska jooga waxaa weeye ku soo darsada mandaqada weyn oo ceelbo oo ummad 40,000 badan oo uu ka dhisan yahay isbitaalka magaalada ceelbo waxaan u mahad celinayaa dadkii horey uga qayb qaatay oo ku guulaystay isbitaalka ceelbo in ay ka howlgalaan haddana ka qayb qaatay inay muujiyaan dhismihiisa hadda inoo muuqda oo hantigooda iyo maskaxdoodaba geliyey isbitaalkaasi inuu noqdo mid ka dhisma magaalada ceelbo waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ku darayaa ragga iyo gabdhaha xoogga iyo maalka geliyey hawlka madaale weli waa hogadii isbitaalkii weli waa qabyo wixii ka dhimanna insha allah waxaan jecel lahaa inaad guushiisa qaadataan oo aad u soo dirtaan oo aydan u nasan dadka deegaanka ceelbo iyagana si gaara ayaan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay reer ceelbo halgan badan iyo shaqo badan baa idinka muuqata ama inaga muuqata dhammaanteenba aan kordhinno isbitaalku gacantii aynu u qaadnaaba waa mid inaga tegaysa dadka hadda aan ka mid ahayn dadka halakan shaqada ka wada oo reer ceelbana waxaan leeyahay ka qayb qaata isbitaalka gacan kaga qayb qaata dhaqaale kaga qayb qaata tala kaga qayb qaata wacyigelin kaga qayb qaata baan leeyahay oo ka soo baxa magaalada iyo dhulka iyo meheradaha soo xidha maalinta loo baahan yahay in shaqadiisa ay socoto haddaanu nahay bulshada reer ceelbo adiguna waa mahadsan tahay xagga ilaahayna ka helo miisaanka xisanaadka allah ku saaro waxaanu kaloo u sheegaynaa waanu ku taageersannahay siyaasadaada iyo musharaxnimadaada waxaanu ku leenahay guulayso baanu ku leenahay aadna waa kuu soo dhawaynaynaa ciddii kale oo iyaduna wax la baxday oo kontonkii sibirka ah oo kale isaguna wuuna soo gaadhay iyagana waa u mahad celinaynaa waxaanu leenahay miisaanka xasanaadka adigana allah kuu saaro cid kasta oo wax ku darsanaysana sidaasaanu leenahay cid kasta oo wax nagala qabanaysana waa u baahannahay qurbajoog iyo galjoogba aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ku soo ururinayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa kuma qofka ka jecel maalkiisa maalka kan dhexlaya ka jecel waxay yidhaahdeen nebi allow ma uu jiro qof ka jecel maalkiisa maalka kan dhexlaya wuxuu yidhaahdeen maxay tahay wuxuu yidhi rasuulku qofku maalkiisa waxa weeye waa ka uu horumarsado wixii uu dib u dhigaana waa kii laga dhaxli lahaa marka horumarsada oo khayr u horumarsada miisaanka xasanaadkana allah idin sare waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum inta madasha isugu timi hooyooyin rag dhalinyaro odayaal culimo kulli dhammaan mudanayaan iyo murwey waxaan dilahay asalaamu calaykum intaa markaan ka gudbo waxa saaka loo yimi cusbatalkii horeba aynu u bilownay oo u wadnay oo aynaan marna ka daalin haddana aynu weli sii wadno siina wadi doono waxa weeye inta ka maqanna waxaan leenahay ka soo qayb gala intii joogto hore u joogto ka shaqaynaysana waa mahadsantihiin dadka dibadaha ka jira ama baadiyaha jiro ama magaalooyinka ku xeeran ha jiro ceelbo waa magaalo weyn waxaa ku xeeran magaalooyin badan oo tuulooyina oo afarta koone ka xiga oo ka mida oo hoostaga iyada iyo baadiye aad u ballaaran oo uu degan yahay dad shacab ah oo reer miyiga oo aan cusbitaal lahayn oo aan caafimaad lahayn oo dhib ay ka haysato kan maxaan ku iraahdaa ama hooyada iyo dhalaanka ha noqoto ama xanuunada kale ha noqoto ilaa iyo qofka laga gaaro dhulka oo bahaluhu gaaraan gaariga halka looga kireeyo wax lagu geeyaa baran ama dhahar ama xingalool baa ugu dhow dhammaan waxaan u mahad celinayaa ka soo qaybgalayaasha dhismaha isbitaalkan ceelbo dhismaha kan ceelbo runtii waxaan u taagannahay halakan oo aanu maaragtay aanu halganka ugu nahay waxa weeyaan baahi aanu u qabno isbitaalka cid kasta oo ka soo qayb qaadatay waxaanu leenahay ilaahay muraadkooda ha siiyo oo midigta ka siiyo ay ugu horeyso maqfiro iyo dambi dhaaf janno iyo muraad adduunya wixii ay leeyihiin allah ha siiyo
أول يا آخر با أنت حنوسنا الله عافية أنت مراد لمراد كود الله هسيو دمانه والبمراد كسله هسيو أنا قرر البوها وحنولين هاي ميل وأحمد عبد الله عيسى أحمد عاشور دقمة علبه قبل كسنة